daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee Bakaal Media qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay raba bandow madhaba in Farmaajo uu iibsaday badda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay arrin aysan mucaaradka marnaba aqbali doonin iyo xildhibaan Mahad Salaad oo shaaciyay farqiga dhanka sharciyada ah ee u dhaxeeya Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Roble intaasi waxa ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roon haatanna isagii oo faahfaahsan xogo qarsoon oo uu helayo Bakaal Media ayaa sheegaya in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka gobolka Banaadir ay ku dhawaaqi doonaan bandow lagu soo rogayo guud ahaan caasimadda iyadoo lagu marmarsiyoonayo caabuqa coronavirus arrintan ayuu Farmaajo uga gol leeyahay in uu ku baajiyo banaanbaxa la filayo in maalinimada Jimcaha lagu qaban doono Muqdisho maadaama uu ka baqayo in banaanka ay u soo baxdo rabitaanka shacabka oo ah in doorasho la qabto si xilka loogu kala wareego si nabadgelyo ah dadka reer Muqdisho ayaa niyad jab xoogan kala kulmay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uusan oofin dhammaan ballamihii uu shacabka Soomaaliyeed ka qaaday waqtigii ololihiisa gaar ahaan shacabka reer Muqdisho oo uu si gaar ah ballamo uga qaaday oo ay ka mid yihiin sugitaanka amniga caasimadda waxaa dhawaan bilaaban rabta qaadista dacwadda badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya taasoo hortaala maxkamadda caalamiga ah ee ICJ kadib markii ay maxkamadda ugu dambeyn diiday in dib loo dhigo kadib 3 jeer oo hore Kenya ay u dalbatay in dib loo dhigo lagana ogolaaday halka dawladda Soomaaliya aysan gudbin wax u dhigma soo jeedinta Kenya taasoo ay maxkamaddu ku qanacday muddo 3 jeer ah dibna loo dhigay muddo sanad gudahooda dawladda Soomaaliya doodaha ay la tagtay 3 jeer ee lagu guuleystay maxkamadda ICJ waxa ay ahaayeen kuwo macno laawiyaal ah waana kiiska badda waxaana uu noqday all in one kaasoo ka ahaa Mahdi Guleed waxaana taasi cadeyn kaga filan dooda Kenya ay u gudbisay maxkamadda waxa ay ka koobnayd 6 bog halka Soomaaliya ay qortay ay ahayd 1 bog oo hal warqad ah waxaana halkaas ka dhahan kartaa dayaca dacwadda badda ee dawladda Farmaajo intii ay jirtay 4 sano ee la soo dhaafay ay u geysatay muddooyinkii u dambeeyay waxa ay soo tarayay walwalka laga qabo dayaca dawladda Farmaajo ay u geystay qadiyada badda oo ah qadiyad qaran iyadoo ay soo bixisay dulduleelo muujinaya in Kenya iyo Farmaajo uu ka dhaxeeyo xiriir wada shaqeyn iyo mid iskaashi oo shakhsi ah sida uu u dhaxeeyo Farmaajo iyo dawladda Eritrea xiriirka gaarka ah iyadoo aysan jirin xiriir toos ah oo dawladaha Eritrea iyo Soomaaliya ka dhaxeeya Farmaajo waxa uu eed koror iyo inuu iska bariyeelo khiyaanada qaran uu la damacsan yahay Soomaalida waxaana si indhal aan xiriirka ugu jaray Kenya wuxuuna uga gol leeyahay markii Soomaaliya laga xukminayo kiiska badda inuu banaanka la soo istaago maxkamadda caalamiga ICJ ayaa naga xuntay waana xaq darro isla markaana taageerayaashiisa macna laawiyaasha ah ay bilaabaan in shacabka Soomaaliyeed lagu malxabaabiyo beenta iyo faata dhugta oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweynihii hore dalka uu kaga qaraabtay ummadda Soomaaliyeed badii ahayd dhaxalka ummadda Soomaaliyeed maanta Kenya ayay u tahay cambulo carab saaran waa sax warkan dad badan oo wax magarata ah ayaa u qaadanaya qiyaali iyo mucaaradid balse xaqiijinta xogtan dib ayaa laga fahmi doonaa Bakaal Media sidii xogaha ku helayso dawladdii waqtigeeda uu dhamaaday ee horkacay Farmaajo ayaa xiriir hoose la leh Kenya Mahdi Guleed oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda waqtigeeda u dhamaaday ayaa wuxuu toos xiriir u leeyahay dawladaha Kenya Eritrea iyo Ethiopia si la mid ah Qatar waana mid ka mid ah dadka loo yaqaan double agentiga oo u shaqeeya sirdoonada caalamiga ah dhaxalkii ummadda Soomaaliyeed kursi dartiis ayuu u gatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo inuu beelhoosaadkiisa uga fadhiisiyo madaxweynaha Jubbaland oo 3 gobol ee Jubbaland gobol ka mid ah degta waxaana saacadeen u tahay in madaxweynuhu uu 18 Soomaaliyeed uu kala jecel yahay u kana xanayo in dhacdeeska iyo keegis cunnimada qarannimada Soomaaliyeed god ayay ku riday qof damiir leh oo arrinta banaanka la soo istaago mucaaradka iyo muxaafadka kuma jiro marka laga reebo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha midowga musharaxiinta qaarkood sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u sheegay madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday in ay tahay in dalka laga badbaadiyo si dalka uusan ugu dhicin god ay adag tahay in laga soo saaro Soomaaliya waa dal ka soo kabanaya dhibaatooyin baahsan oo 30 sano ee la soo dhaafay ka jira dalka waxaana dalka 22 sano soo xukumayay kala talis cagta mariyay dhammaan nidaamyadii dimuqraadiga ahaa ee dalkan uu 9 sano ugu horeysay xorriyadiisii ku naaloonayay waxayna hadda u baahan tahay u turid iyo in madaxweyne kasta oo xilka ku fadhiya uu garowsado in ay tahay inuu xilka u wareejiyo sidii isaga loogu wareejiyay daawadayaal qaybihii dhexe ee wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaan isla soo gaarnay markanina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kalena kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka
ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo madaxweynaha uu muddaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Xasan Sheekh ayaa fashalka iyo dib u dhaca ku yimid doorashada dalka dusha u saaray dowladda federaalka iyo madaxdeeda uu muddaxileedkeedu dhammaaday. Waa sida uu sheegay madaxweynuhu. Waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday uu qayb ka yahay caqabada ku horgudban doorashada dalka, isagoona xusay inuusan doonayn in dalkan ay ka dhacdo doorasho xilli ay beesha caalamka gadaal ka riixayso xalka gaarista muranka doorashooyinka. Sidoo kale waxa uu lama aqbalaan ku tilmaamay sii joogista Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, isla markaana uusan marnaba ogolaanin golaha mucaaradka oo iyagu dhammaadka toddobaadkan ku baaqay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Farmaajo, laguna dalbanayo doorasho dhaqso u qabsoonta. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo midowga musharaxiinta mucaaradka ay ku dhawaaqeen banaanbax weyn oo ka dhacaya magaalada Muqdisho, kaasi oo taalada dalajirka Daason ee degmada Boondheer maalinta Jimcaha oo taariikhdeedu ay tahay 19 Febraayo lagu qaban doono, ayna ka soo qaybgali doonaan madaxda midowga musharaxiinta, xildhibaano heer federaal iyo wasiirro hore. Sidoo kale xaaladda caasimadda ayaa laga dareemayaa qabashada banaanbaxaasi, waxaana is soo taraya dadweynaha baraha bulshada ku soo bandhigaya ama ku cabiraya inay kaga qaybgali doonaan dibadbaxaasi nabadeed ee looga soo horjeedo sii joogista sharci darrada ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waa tahay wari wararka Soomaalida ee Bakaal Media ayaa daawanaysaan. xildhibaan Mahad Salaad ayaa isbarbardhig ku sameeyay sharciyada ay xafiiska ugu sarreeya dalka ku joogaan madaxweynihii hore ee Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, isagoo dalbaday bal in lala wadaago haddii uu jiro qodob dastuuri ah oo Farmaajo awood u siinaya inuu xafiiska sii joogo. muddada xilhaynta madaxweynaha waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo sida ku cad qodobka 19 ee dastuurka ku-meelgaarka. sidaas ayuuna Farmaajo ku yahay madaxweyne hore ama madaxweyne xilkiisu dhammaaday, ayuu Mahad Salaad ku yiri qoraalkiisa uu soo dhigay barta Facebook, isagoo daliishanaya qodobka 103 ee dastuurka dalka. ayuu ku tilmaamay in ra'iisul wasaare Roble uu sharciyad u haysto inuu sii ahaado ra'iisul wasaare xilgaarsiin ah inta laga soo magacaabayo ra'iisul wasaarihii xilka kala wareegi lahaa. ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisu waa xilgaarsiiyaal inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo inta laga dhaarinayo ra'iisul wasaaraha cusub, sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka. sidaasi ayuu Roble ku yahay ra'iisul wasaare xilgaarsiiye ah inta dowladda cusub ee dhalan doonta ay ka soo magacaabayso ra'iisul wasaarihii isaga bedeli lahaa, ayuu yiri Mahad Salaad. xildhibaan Mahad ayaa sidoo kale sheegay inuusan jirin qodob dastuuri ah oo maanta madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ogolaanaya inuu sii joogo xafiiska, xitaa haddii aan weli la dooran madaxweynihii bedeli lahaa isaga. qofkii qodob dastuuri ah oo Farmaajo lagu difaaci karo haya hayla soo wadaago. qofkii ujeedkiisu yahay inuu dadka qabyaalad ku indha sharcaadiyana faallooyinka hoose waa u fasaxan yahay ee ha ku ciilbaxo, ayuu Mahad Salaad ku yiri qoraalka uu soo dhigay Facebook. dhammaan hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhameystay muddada xilhaynta ee dastuurku u ogolaanayay, waxaana hadda la isku mari laayahay hanaankii loo dooran lahaa madaxda bedelaysa kuwa waqtigu ka dhammaaday.